dunidaynu joogno waxaa aad u yaaba nin baa khudbadeeyey waa madaxweyne mise waa ra'iisul wasaare khudbadiisi waxa weeyaan man is a man woman is a woman weligaa wax bini aadama waxaa ku khudbadeeya maa ninku waa nin ayuu madaxweyne ku khudbadaynaya gabadhuna waa gabadh markaasaa loo sacabinaya waayo dunida maanta jooga waxay leeyihin labada eray baa la sharxi kari lahay yaa gabadha iyo yaa ninaa la garan lahay anta maraykanka maxaa la yidhaha baarlamaanada ka taliya waxa su-aale la weydiinaya kuwii xabsiga haystay kuwan la gegediye la walaaqay ayaa la yidhi xaggee lagu xidhaya raggan dumarka laga dhigay bay qaar yidhahdeen dumarkaa lagu daray xabsiyadii dumarkaa la geeyey imisaa ku jiraa la isweydiinaya marka iyagu xaggee lagu darayaa baa la xaggee lagu xidhaya dunidaynu maanta joogno faaxishadu xadkaas imanaysaa ay xuquuqu noqotay awal dunuub bay ahayd ama ha la sameeyo ama yaan la samaynin laakiin iminka waxay noqotay xuquuq bini aadam dabeetana nebigu wuxuu ihi faaxishadaasi duul kuma faafto ilaa iyo ilaahay wuxuu ku itixaamaa taacunno iyo xanuunno aan dadkii hore ku dhicin mise xanuununbaa soo baxay kuwa iyada toos ugu xidhan oo in badan ah amraadu zina inta ugu badani waa herbisde waa yani sheeguun xanuunada ay tilmaamaan in kolba dilaace sababaha ku dilaaca waa aids waa kan ama xanuuno guud oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku itixaamay dadkoo dunida kolba mid dhex maro waan xanuuno ay dadkii hore yaqaaneen aan ahayn buu nebigu yidhi kuwaasi waa kuwa faaxishada sameeya